maxaan kugu dhiirigelinaa ku biirtay ciidanka booliiska Soomaaliyeed runaantii waxyaalo badan baa igu dhiirigeliyay markii hore markaan u guuray Soomaaliya intaan u guurin ka hor horta hal qiso baa igu dhacdaan jeclaan inaan ila wadaaga waxaan u shaqeynaa jaamacadda la dhaho London Metropolitan waa taqaaniin Omlena Holloway Road waa meesha wax ka bartay shaqo fiican baa ka haystay I was okay Somali community-ga markaan activist ka ahaa xaaladdu iska degneed yaxna maalin kamid ah marka Rabiul Ramadan bay ahayd waxa dhacay marka shaqaale kamid ah shaqaalihii London Metropolitan oo gaar ahaan IT department ka shaqeeya ayaa wuxuu sameeyay sartar aad u dheertay 12 dabaq weeyaan dabaqii sideedaad intuu koronikii dabaq iska soo tuuray wuxuuna ka hor dhacay marka xafiiska anaga ka shaqeynay banaankiisa soon ahayd bishii June kuleelkeeda iyo soonka London aniga kama waramayo waa ka warhaysiin يعني واقلقلي نينكي ميدكيسي اسيو باسكيلو ku kor dhacay marka maskaxda I don't want to details kasina in la galo laakiin xaalad xun ku sugnaa ninka waan dawaqrunaanti soonki baa laga jibiyay kadib hal su'aal baan isweydiiyay su'aashaas aan isweydiiyay jawaabta iga soo baxday baa horta igu dhiirigelisay inaan Soomaaliya u guuro su'aashaas isweydiiyay waxay ahayd ninkan oo ah nin cadaan ah British dalkiisa jooga isku shaqo baatihiin kaamishaar badan waa maxay wuxuu asiga raadinayay oo waayay oo adiga oo gabar muslim madow qaxooti oo kaamishaar yar ka aqoon yar aad doonayso asiga aa waayay yacnaa waxa ay soo baxday aakhiran anigana ama meeshaas ku dhamaada yacnaa ma dhahay hadda dhamaantiin Soomaaliya u soo wada yaaca laakiin waxa igu dhiirigeliyay waxa ahayd you know what waxa u baahnaa dalkeena u laabta waan soo xasuustaa hooyaday baa wacay markaas waxaan dhahay hooyahay am ii ducey am ii habaar am going to Mogadishu waxay tiri maxaa ku qahelo waayo ninkan ba cirka ka soo dhaco halkaas marka waxay tiri ma Mogadishu ma kaaga horeeyay miyaa iga horeeyay laakiin madfaca kor ka soo dhacay nin iska duulaya maaniga ma joogi kari marka horta taas baa igu dhiirigelisay shaqada markaas waxaan ka helay hay'ad la dhaho Heritage Institute cilmi baaris sameyn jirtay hay'adaas anoo la shaqeynaya baa taliyaha markaas ciidanka booliiska ahaa oo noo imaan jiray marka waxaan ka saaciday jiray project proposaladii waxaan sitinaa la qorqora waxaa fursad u helay marka inaa booliiskii aan la shaqeeyo anoona booliiskii ka tirsanayn waxaan arkay marka taariikhdii booliiska aan waxyaalo badan ka baaray ilaan project proposal marka qorays waxyaalo badan inaa fahantaa weeyaan saraakiishii baa wareystay waxyaalo badan baa ii soo babaxay waxaa dhahniyoo dawlad ama qarankan Soomaaliyeed ma dhismaayo ilaa laga dhiso ciidanka booliiska Soomaaliyeed ciidanka booliiska Soomaaliyeedna waa halka institution oo by the way taariikhdiisa memorygiisa galalkiisa waxa soo dhan waa la haya waa halka meel oo la bilqaysanin waxaana maxaa ku raada badbaadiye waxay ahaayeen saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo isku dhiga xabadaha oo ka diiday xataa qabaa'ilkooda in la baada taliskeenana marka waa talis aad u qurxoon oo aad u weyn mugta dad waa iska rabeen iska taabsadaan laakiin saraakiishi baa u diiday markaan aad saas u wareysto marka waxaan isdhahay hay'adan weeyaan hay'adii furihii nabadgelyada iyo nabadda iyo jiritaanka dawladnimada Soomaaliyeed hay'adana furad ah hay'adan marka waxay u baahan tahay in lagu soo biiriyaa human resource fiican waagi hore waxa la dhigi jiray waraha qori ma haysataa wax ma dili kartaa booliis noqo qori booliis wax uu badbaadiyaa wax ma dila marka waxaan dhahay sidee baan ugu dhiirigeliyaa marka dhalinyarta inay ka mid noqdaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed lima taquluna ma la taf'alun lillahi why are you saying what you are not doing you do then they follow ana ku dhaxbiir marka saasay tabaa ku soo dhaxbiir walaashay Maryan su'aasha aad igu soo laalaawato mar walba adiga inana seerad u xukunta horta Soomaalida rag waxay ku maamaahan neef walba meesha is dhigaa lagu qoorax anina waxaan dhahaa naag walba meesha is dhigtaa lagu dhaqaa waxyaalaha hal qisbaar waa inaan la wadaago markaan ku soo biiray ciidanka waxa markay leeyo magacaabay taliyaha hoggaanka arrimaha bulshada ama community policing sida loo yaqaan waa markii ugu horeysay marka gabar loo magacaabo taliye hoggaan ama department marka shir waxaa jiray marka oo hogaamada dhan isku wada iimaanayeen shirki marka imaaday ilaahay markiisa marka hal uniform baa qabay uniformkii wasaqo iga dhar caadi ah iskaga imaaday shirki baa soo fadhiistay marka kooy ag fadhiyo baa yiri oo walaalay aan ku duceeyo koob shay soo qabo darajadiisa baa fiiriyay waa gaashaanle marka gaashaan yacni tan kaliyu haysta ani xidig kale ay sii saaran
saana u fiiro xada waraa ka digtoono markaas uu saan intuu iyagu yiri nama ana digtoono way dhigi kartaa markaas nin kale oo ag fadhiyo jug intuu siiyay waa korneel qofta kula isla markii buu kacayo digtoono galuu salaad iska bixiyo taliyo raali noqo waa ka dhacday meesha warga waxaan irinay oo ka shaahadan doono anina koob ii keen ana la soo daayna marka ku soo celiyay naagul meesha isdigtaa lagu dhaqay